laba mudaharaad oo iska soo horjeeda ayaa caawa magaalada Berlin ka dhacay. Labadan mudaharaad oo ay soo qabanqaabiyeen koox taageersan Angela Merkel isla markaana u doodaysa xuquuqda qaxootiga, halka kooxda kale ay ka soo horjeedo Angela Merkel isla markaana ay siteen sawirro ay dhiig faraha kula jirto kuna eedeynayeen inay mas'uul ka tahay dhibaatadii loo geystay ama gaadhigii la jirsiiyey dadka habeen hore suuqa Christmaska ee magaalada Berlin. Mudaharadayaashan ayaa waxay ku qaylinayeen erayo aad u qalabsan oo ay kaga soo horjeedaan qaxoontiga isla markaana ay ku dhaliilayaan siyaasadda Angela Merkel ee qaxoontiga, taas oo ay leeyihiin adiga ayaa u ogolaaday waddankan inay soo galaan qaxoontigu, manay dhaceen weerarka noocan oo kale ah haddii aanad qaxoontiga u ogolaateen inay waddanka soo galaan. Nimankan mudaharadayaasha ah oo badankoodu ay xidhiidh la leeyihiin ama ay ku jiraan xisbiga garabka fog ee AfD iyo MPD ayaa ku dhawaaqaya erayo aad ay u dhibsadeen mudaharadayaasha kale isla markaana ay kooxda kale ka soo horjeedo booliskuna uu ku dhex jiro. Kooxda kale ayaa ku dhawaaqaysa erayo ay qaxoontiga ku soo dhaweynayaan iyo inay propagandada joojiyaan kooxdan ka tirsan AfD. Calaamada ay sitaan ee ay ku muujinayaan inay taageersan yihiin qaxoontiga iyo kooxda Antifa oo calankeedu ka dhex muuqdo aad arkaysaan hadda qof lulaya ayaa u ahaa astaan mudaharaadkooda. Nabadda iyo wada noolaanshaha iyo in qaxoontiga la soo dhaweeyo waxay ahaayeen ereyada ay isticmaalayeen, iyaga oo u sheegaya kooxda kale ee mudaharadayaasha inaanay u isticmaalin dhacdadii habeen hore dhacday arrin siyaasadaysan. Doorashada Jarmalka ee soo socota ayaa ay doonayaan kooxda AfD inay ka dhigtaan dhacdadan habeen hore dhacday mid ay ku galaan ololaha doorashada, taas oo noqon karta mid ay doonayaan mid ay cod ku kasbadaan. Halka kooxda kale markiiba ay soo dareereen markii kooxdaasi timi gegada uu shilku ka dhacay meel u dhow habeen hore, isla markaana ay muujiyeen inay ka soo horjeedaan mudaharaadka siyaasadaysan ee ay doonayaan inay dadka kaga dhaadhiciyaan waxyaabo lagu diidsiinayo qaxoontiga isla markaana dadka Jarmalka lagu hiigicinayo, taas oo la doonayo in cod uu ku helo xisbiga AfD. Xisbiga AfD ayaa badanka waxa uu taagan yahay mar kasta in uu eedeeyo ra'iisul wasaare Angela Merkel, taas oo goor iyo habeen gabadha la yiraahdo Frau Petri ay u taagan tahay in Angela Merkel ku tilmaanto qof waddankeeda burburisay isla markaana ku soo deysay qaxoonti aan tiro lahayn. Sanadkii 2015 horraantiisii Angela Merkel waxay ogolaatay in qaxoonti Syriana oo fara badan iyo qaxoonti kale oo iyaguna wadamadooda u dagaal ka dhacay ay soo galaan waddankan Jarmalka, taas oo ay soo dhex raacaan dad fara badan oo muhiimado kale wata sida argagixiso iyo waxyaabo kale. Balse Angela Merkel taasi kamay joojin in ay ilowdo bini'aadanimada isla markaana albaabada ay u furto qaxoontiga wadamadoodii dhibaatadu ka dhacday. Mudaharaadkan caawa ayaa magaalada Berlin aad looga dareemayay, kaas oo dhammaan daafaha magaalada la iskaga kala yimi si loo muujiyo in la taageersayo qaxoontiga isla markaana aan u qaybin karin ama aanay qaybin karin kooxda cunsuriyiinta ah ee AfD dadweynaha Jarmalka isla markaana aanay ku diri karin qaxoontiga, halka kooxda kale ay soo taagan yihiin qaybta kale ee ka soo horjeeda waddada isla markaana ay ku qaylinayaan erayo ay ku diidayeen Angela Merkel iyo mudaharadayaashan ka soo horjeeda. Booliska Jarmalka oo markasta u taagan heegan oo ah inay ilaaliyaan ammaanka gaar ahaan caasimadda Berlin oo si weyn looga dareemayo dhaqdhaqaaq ammaan kadib markii uu habeen hore ka dhacay shil aad u xun oo 12 qof ku dhintay 48 qof ku dhaawacmeen ayaa ku dhex jira dadweynaha isla markaana kala ilaalinaya inuu dhaco isku dhac dhex mara labada kooxood ee mudaharaadaya. Kooxda Antifa ama antifascist ayaa had iyo goor u taagan ilaalinta qaxoontiga ama inay u doodaan qaxoontiga Jarmalka oo aad arkayso calankooda oo si weyn uga dhex muuqda meesha isla markaana had iyo habeen ay u taagan yihiin in ay xuquuqda qaxoontiga ama markasta ku hor mudaharaadaan marka kooxda AfD ama xisbiga garabka fog ee midigtu uu sameeyo mudaharaad ka dhan ah qaxoontiga. Kooxdan Antifa oo magaceeda loo soo gaabiyey antifascist ayaa waxay u taagan tahay mar kasta inay la dagaalanto cunsuriyadda iyo midab kala sooca isla markaana ay dadku u siman yihiin, soona dhaweysa qaxoontiga meel kasta iyo goob kasta ay ka joogaan gobollada Jarmalka. Antifa waa urur ka jira oo ku xoog badan bariga Jarmalka, kaas oo badanka
mar kasta iyo meel kasta aad ku arkayso kaamamka qaxoontiyada ay degan yihiin iyo goobaha qaxoontiyadu ay joogaan, mar kastana aad arkayso boorarkooda iyo dareenkooda iyo meel kasta oo ay joogaan inay ku muujiyaan dareenka kalgacalka xambaarsan ee ay siiyaan markasta qaxoontiga soo galay dalka Jarmalka. Halka kooxaha AFD iyo MPD oo magaalada Berlin waayadan aad ugu soo badanaya ay mar kasta muujiyaan inaan raalli ka ahayn qaxoontiga jooga magaalada Berlin. Xisbiga AFD ayaa magaalada Berlin waxa uu ka helay kuraastii codka deegaanka ama doorashadii golaha deegaanka lagu dooranayay 14%, taas oo keentay in ololahooda siyaasadeed soo xoogaysto sababtoo ah qaxoontiga waddanka soo galay iyagoo u aaneynaya inay waddanka dhibaato qaxoontigu ku soo kordhiyeen, isla markaana dadweynaha Jarmalka u sheegaya in qaxoontiga ay sharci ku soo dejin doonaan ama qaxoontiga ay kantarooli doonaan, sidaana ay cod ku heleen. Halka xisbiga Angela Merkel ee CDU kaalinta labaad ku soo dhacay, isagoo sanadihii hore ahaa xisbiga ugu horeeya ee markasta doorashada codadka ugu badan ka hela magaalada Berlin iyo dhammaan gobolada Jarmalka oo dhan. Mudaharaadkan caawa magaalada Berlin ka socda ayaa waxa sabab u ah isla markaana kiciyay ama soo abaabulay ama ay salka ay ku haysaa dhacdadii ka dhacday xalay toole ee xanuunka kululayd, taas ee xanuunka badnayd ee xalay toole ay dadweynuhu ku dhinteen. Dhanka kale, booliska Jarmalka ayaa iyagu mar kasta waxay taagan yihiin goobta. Waxaad arkaysaan booliska oo hadda dadweynaha ku dhex jira ama hortaagan kooxda mudaharaadaysa siday u ilaaliyaan ama aanay u suurtoobin in qof ama shakhsi uu soo tuuro wax ama ay gacan ka hadal u dhex maro labada kooxood. Booliska Berlin ayaa mar kasta aad arkaysaa magaalada gudaheeda iyaga oo mar kasta aanay iyadoon dhacda jirin ama aanay waxba dhicin sakad kasta ay taagan yihiin, isla markaana ay magaalada ammaankeeda aad u ilaaliyaan iyagoo ku qalabaysan hub nooc walba ah, gaar ahaan qoryaha darandooriga u dhaca, baastooladaha iyo kamaradaha lagu xidho koodharka ama kamarada loo yaqaano kamarada shakhsiga ah ee lagu xidho jeebka bidixda dushiisa, taas oo u sahasha in ay duubaan ama ay ogaadaan qofku rabashka uu sameynayo ama qofkaas wejigiisa ay duubaan ama hadhow toole haddii loo baahdo wax caddayna qofka wax sameeyey aad yar lagala soo baxo muuqaalkii ku jiray kamaradaas. Magaalada Berlin ayaa caawa aad arkaysaan aad iyo aad la isugu soo baxay, mudaharaadkana uu yahay mid saameyn siyaasadeed iyo mid taageerid labadaba iskugu jira, gaar ahaan xisbiga AFD oo ka faa'iideysanaya xalay toole dhacdadii dhacday uga dhigaya Angela Merkel ama xisbigeeda dhaliil ay doonayaan inay dadweyne fara badan oo ay cod ka helaan ay ku kasbadaan, halka kooxdan kale ay u taagan tahay in ay ka hortagaan propagandada ama kutirkuteenka ay fidinayaan kooxdan garabka fog ee AFD oo mar kasta eegta jaanisiyada noocan oo kale ah ama dhacdo uu qaxoontigu sameeyo ama khalad uu qaxoontigu sameeyo, isla markaana ka dhiga arrin siyaasadeed. barahooda Twitterka ama meelaha isticmaalana Twitterka waxaa jirta ama Facebookyada ay isticmaalaan ama page-ka ay ku leeyihiin internetka xisbiga garabka fog midigta ee AFD waxay soo dhigeen ama ay ku faafiyeen Angela Merkel oo gacmaha kula jirta dhiig, taas oo ay yiraahdeen waa meydadkii Angela Merkel ama Angela Merkel meydadkeedii oo ka dhigan waxa dishay Angela Merkel dadkan lagu laayay suuqa xalay toole, sababtuna ay tahay arrinta aynu wada ognahay ee hore soo sheegay ee ah inay qaxoontiga u ogolaatay inay waddankan soo galaan ama ay waddankan yimaadaan qaxoontigu. Si kastaba ha ahaatee, mudaharaadkan caawa waxaa aad looga dareemayay magaalada Berlin, taas oo kusoo gabagaboobay si nabad ah.